iyadoo uu dalku soo maray marxalado aad u kala duwan oo ahayd in xilalka dowladihii soo maray dhowr iyo 20 sano aynu soo dhaafnay ay u kala tartamayeen hogaamiye kooxeedyo laguna tixgelin jiray jagooyinka qofba qofka uu ka hubbadnaa ayaa xilligan waxa uu dalku marayaa in lagu tartamo aqoon kadib markii 6 saxiixayaasha tubta nabadda Soomaaliya ee loo yaqaano road mapka ay saxiixeen taasoo lagu doonayay in dalka iyo dadkaba looga saaro xilliga raadka dheeraaday ee ku meel gaarka loona bixiyo dal ay ka dhisan tahay dawlad aan ku meel gaar ahayn ayaa waxaa la isku afgartay in loo baahan yahay rag aqoon-yahano ah oo aqoontooda dalka iyo dadkaba ku samata bixin kara intaasi kadib ayaa qodobo badan oo shiro lagu saxiixay lagu sheegay in baarlamaanka guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo weliba ra'iisul wasaaraha dalka lagu xusho aqoon oo lagu xujeeyo ugu yaraan in uu haysto shahaadada dugsiga sare hogaamiyaalaha fara badan oo loo xulay xildhibaano ayaa waxa ay haystaan shahaadooyinka dugsiga sare iyadoona qaar kale aan haysanin shahaadooyinka halkaasi la geeyey laguna celiyey dhinaca kalena shakhsiyaadka u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya oo aad u fara badan ayaa qaarkood waxa aysan haysan shahaadooyinka dugsiga sare wax dhaafsan halka qaar kalena ay yihiin rag sanado badan wax ka dhigayay jaamacado ku yaalay dalka iyo dibadda oo aqoon aad u duruqsan leh kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiin dawladda ka tirsan gaar ahaan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa waxaa dood gaaban ay dhex martay wasiirka dastuurka dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan doodaasi oo ku aadneyd in Shariif Xasan uu sheegay in aan wax shahaado ah isku xujeynteeda aysan waxba tarin oo uu sheegay in ay tahay mid suuqa taalo oo la soo samaysan karo in la iska dhaafana ku taliyay waxa sheegaysa in suuqa ay wadayaan kulli wala soo wada gala ma diidi kara barnaamij xujja ka dhigo haysan laakiin meesha ku furtaana suuqa يبقى ماشي بدبنا اه والله ويلاش هلا باور غريلادana hal باور غريل aad tiriyaan kaga shakiyay baniga ana dhaw hal باور غريل marka waxa soo ogtiin marka si loo باور غريل askar si kastaba Soomaalida caalamka ku sugan gudaha iyo dibadda dadka aqoonta leh waxa loo taagay gacanta oo baaq u ah in siyaasadda Soomaaliya samata bixinta dalka iyo dadka iyaga looga baahan yahay Muqdisho waxa gaaf wareega gawaari badan oo ay musharaxiin ku sawiran yihiin oo codbaahiyayaal lagu soo rakibay musharaxiintaasina waxa isugu jiraan kuwa aqoontooda ay tahay mid aad u sareysa halka kuwa kalena ay yihiin kuwa aqoontooda ay tahay lacag iyo laaluush balse ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dhowr sugayaan 20 Agoosto oo lagu balamay dawlad cusub hoggaan cusub oo aqoon-yahano ah iyo waliba dimuqraadiyad dalka ka curata